السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدنى ندي السلام الضمان ضلنا يرضى صوماليات من البلد جوكتان. وحوي نكاد ضلنا يرضى وحال لقوا قبطي هذا مردود داينيله إذا يعني لقوا إيدي إنه بمبتور وكبي إله بأكرت وحيها نقوم أجنكم الدنبابي كرنو حضي نبطه بمبؤ وطور يي إن قد لقول جودة ما هنا برتو جوجو إن ما ركتاي لقول دلائي ترت عضو بمبتور يي وضد دباطير ربي إن برتش لقول توكتيه ما دعينه هل كان يلا وضع هل كان وحبا يجا بحيا صومالي دليرة صوماليات بان الله الله مش هداين اللي را إن بدن بان نقول سو جوجي هرداين اللي أيان هاي تعدي بدن أيا كجرة واحد يرقفك والله إسكا قبانيا وشباب باله waxaan ogahay oo u soo joogay oo ilaahay igu xisaabinaya soo hor taagnay nin la yiri waxba toori rabay in la qabto la xirxiray la dhigay argada agtiisa isagoo fadhiya la gubaya sagaara la shadaya wajiga loo gubaya wajiga sagaal meelood oo wajiga ah baa looga damiyay sagaar wajiga sagaal meelood dab uga yaala baa ilaa iyo jilcu la sii garaacay jilcu baa la geeyay waqti uu ku soo qaatay waa soo bax waxba lagu waayay maxaa dhacday wuxuu yiri yaan u dacwoodaa aamusu irida ka baxbisa liira cida u degartid male dayneela waxa ka jira annaguna waa ogna ilaahi subhanahu wa ta'ala waa ogyahay waana lees weydii doona sababna waxa uu ah dawladda hadda jirta aaba ka samaysan waxa wax tuuraana iyaday u badan yihiin oo ku dhex jiraan waxa weeye marka hadduu shabaab uu yahay oo dhab ay tahay yaan geed lagu gudan hal toogto haddoosan ahayn qaladaad ka dayneela aan ku naqaanay oo yahay qaladkaan oo saa ku dhacay qalad ay tahay yani wax aan la hubin ee dambi lagu waayo niga dhalinyarada waa in xuquuqdiisa helaa oo aan ka aragnaa baraha bulshada xuquuqdiisa isagoo helay ama cid u dooda hela waayo qofka sumcadiisa lagu ciyaaraya qofka sumcadiisa lagu ciyaaro banaanka la keenaa talaabo laga qaadaa oo loo soo bandhigo ummadda markii dambi lagu helo dadkan kaamirada iska la wareegay ee sax iyo qalad aan kala aqoon waa in lala xisaabtamo haddii dawladdu jirto haddaysan jirin awalba anagu ma aaminsanayn inay jirto dhalinyaradeen ma aaminsanayn inay jirto haddayna jirin waa in lala xisaabtamo haddii dawladdu jirto waa in dhalinyarada laga saaraa kurbada iyo shakiga ku jira waa in loo xaqiijiyaa in dawladdu jirto ninkan laba maadaama lagu soo bandhigo isagoo xuquuqdiisa helay oo loo doodayo cirdigiisa iyo sharafkiisa lagu xadgudbay xaal laga mariyay iyo isagoo dambigii lagu sheego oo ku cadaado oo waajibkiisa la marinayo hana loo soo bandhiga saan ugu qanacno waa hadaa waxa la sheegayo dawladda jirta anagu ma aaminsanin laakiin hadii dhabta waa la qanciyo ummadda ilaahay subhanahu wa ta'ala waa noogu cara waxyaabaha qaarna waxa la daawo karin ayaa jira